الله أن حريستي أبوان حسن محمود حسن شعيل أيا مانتا لغو آسي مقالة نيروبي ee dalka Kenya iyadoo abwaankuna labadii sano ugu dambeeyay uu ku xanuunsanayay magaalada Nairobi abwaan Xasan waxa uu kamid ahaa wariyaashii ka howlgalaya gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxa sidoo kale uu ahaa abwaan si weyn looga yaqaan guud ahaan dalka Soomaaliya baahinta iyo abwaanada iyo asxaabta iyo ehelka iyo dadka badan oo micnaha leh Xasan kamid ahaa in ilaahay bedelkooda siiyo ayaan u rajaynaynaa uguna ducaynaynaa annagana ilaahay bacdigiisa nama fidneeyo dadka noocaasa oo micnaha bulshada ku leh xusuus bay mudan yihiin waa la wada dhimanayaa Xasan waxaan ku xusuustaa inuu ahaa nin wadani ah oo Soomaaliyeed nin jecel wanaaga qof kasta oo Soomaaliyeed meel kasta uu joogo Xasan waxa kale oo aan ku xusuustaa intii uu xanuunsanayay inuu yahay qof iimaan leh waxa weyn Xasan waxa uu ahaa nin ixtiraam badan oo hataa maalmihii ugu dambeysay noloshiisa ay dhibaatada ku jirto waxa nin farxaana oo dadka soo dhaweeyay oo maartay insaaniyad badan ayuu ahaa marka waxaan culimada ka maqalay maartay xanuunka badan ee dambi dhaaf uu leeyahay marka runtii aad buu xanuunsaday xanuun fara badan ayaa soo maray Xasan asay shay maanta waxa weeyaan maanta aaskiisii baan joognaa waa maalintii la qoray ee sidii maartay maalintii uu dhashay loo qoray wuxuu kala dhintay maartay ummadda Soomaaliyeed wuxuu ahaa nin maartay dadka la helama ahayn sheekooyinku qori jiray ani hoon Afrika markaan imaado oo aan gobolka Gada ka imaado maartay uu soo dhaweyn jiray sababtoo ah nin dhalinyarada jecel u ahaa oo dadkiisa jecel inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan halkan tacsiin uga dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan saxaafadda Soomaaliyeed iyo fanaaniinta Soomaaliyeed iyo abwaanada Soomaaliyeed waxa maanta aan magaalada Nairobi ku aasaynaa naxariis janna Ilaahay hasiye Xasan Maxamed Jacayl oo ahaa abwaan wariye fanaan musician hal abuure aan ku ah wadankeena Soomaaliya iyo adduunka intiisa kalaba anigoo Fahad Yaasiin janaasadan ka soo qayb galay waxaan rajaynayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga baryaaya inuu naxariisto dambigiisana uu dhaafo jacaylkan loo hayo ee loogu yimid magaciisuna ahaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisana laga jeclaado Xasan Allahu naxariisto dhamaanteen waan ka marqaati kacnay maanta de gurigiisii rasmiga ahaa buu u hoyday intuu uu ka dhigtay oo ay ugu horeyso qoyskii iyo ehelkiina Ilaahay sabr ka siiyo annagoo de mihnadii iyo bahwadaag aan ahayn oo wariyaashina Ilaahay sabr naga siiyo Xasan Jacayl wuxuu ku dhashay magaalada Dhuusamareeb 1964 afar sano kadib xilligii Soomaaliya xornimada ay qaadatay wuxuu ku soo barbaaray oo wuxuu ku soo bartay magaalada caasimadda ee Muqdisho halkaas oo ka soo shaqeeyay shaqadiisa ugu badan waxay ahayd abwaannimada inkastoo shaqooyin gargaar uu hayay sidaas la mid ah xilligii dambe ee dawladda Soomaaliya burburtay wuxuu abwaanku ku beeray qalada saxaafadda waxaan ka shaqeey jiray idaacadda caanka ahayd xilligaasi oo markii dambe lagu dhibaateeyay ka bacdina oo ka soo cararay waxaan tacsiyo tiiraayeen halka uga dareena walaalkeena Xasan oo ku geeriyooday Nairobi oo muddo badan ku jirana dalka Nairobi waxaan leeyahay naxariis Ilaahay hasiyo Xasan horta anaga waxaan ahayn dad walaalo ah oo meel ka soo wada shaqeeyay oo hobalada waa bari ah nin wuxuu ahaa abwaan ah nin wuxuu ahaa musician ah nin wuxuu ahaa kaalin badan ka soo qaatay hobalada waa bari حمدي محمد كذية Universal TV Nairobi